nimco maxamed cali oo ka socota jaaliyadaasi Ottawa nimco ku soo dhawow marti sharafka dhamaantiin waa salaamantihiin aad baan ugu mahadcelinayaa guddiga isku soo dabariday hawshan quruxda badan idinkuna wax badan baad fadhideen marka waxaan isku dayayaa inaan hadalkayga soo gaabiyo kulay mar dhow buu ii keeni doonaa hindi warqad marka waa u sii afeefanaya waxaan jeclaan lahaa caawa 3 qodob kaliya inaan taabto mid horta waa sheeko gaaban aan rabay inaan idin sheego midda labaadna waxa weeye hiigsiga 2016 midda saddexaadna inaan ra'yi yar oo aan ka qabo arinta laga wada dhawaajiyay oo ah dowladda federaalka iyo 8 bilood oo inoo hadhay marka sheekada aan idinka igula jira waxaan rabaa inaan idin weydiiyo horta imisa xaj ka tagtay okay kasoo qaad markaad xajka u socoteen qof waliba package buu iibsadaa haddii markaad xajka tagto diyaaraddu cagaha dhigato lagu yiraahdo ma geli kartid ma xajiyeys how do you feel waa dagaalamaysaa soo ma waxaad leedahay package baan iibsaday 5000 6000 ku dhawaad baan bixiyey waxa weeye xaq ma aha cadaalad ma aha dagaal baan ka xigaa marka waxaan rabaa inaan idinla wadaago sheeko aan arrin noocaas ka soo xigsaday waxaa jirtay waagii nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenada kamida inuu riyooday iyagoo Madiina jooga markaasuu asxaabtii wuxuu ku yiri anigu macallin baan ahaa oo gacmahan ka hadlaa so I'm kind of having a hard time microphone-ki inaan isku wado but I will try marka asxaabtii wuxuu ku yiri waxaan ku riyooday xalay inagoo soo xajinay oo Madiina tagnay Makka tagnay oo si nabad ku tagnay asxaabtii marka Makka waa laga soo qaxiyay waa guryahoodii waa laga soo cayrsaday waa qaxooti inagoo kala sida Canada aynu ku nimid Madiina yimaadeen dawlad bay ka aasaasteen ciidan bay ka aasaasteen shaqooyin iyo waxbarasho iyo wax walba guul bay ka gaareen marka muddo kadib markuu nabiga calayhi salaam u sheegay uu ku yiri waxaan ku riyooday inagoo si nabad u soo xajinay waxay yiraahdeen haye waan tagaynaa dharkooda ihraamka soo gashteen way soo dhaqaaqeen marka dadkii xajka u soo tabaabashaystay markii la isku dardaro siiradu waxay ku qiyaastaa inay ahaayeen ilaa 1400 oo qof adigu meel aan soo gaabinayaa sheekada culimo badan baa halkan fadhido kolay garanaya dhibaato badan daraadood wadooyinka ay soo mareen ugu dambeyntii waxay u soo dhawaadeen Makka Quraysh baa ka wal heshay adigu markii ugu dambeysay sheekadu waxay isugu soo gabagabowday inay ciidamadii Quraysh u yimaadeen nabiga calayhi salaam waxayna ku yiraahdeen heshiis baynu kala saxiixanaynaa marka heshiiskii markii la isugu yimid maalintii heshiiska la kala saxiixanayay dhowr qodob baa dhacay waa maalintii muslimiinta iyagoo 1400 oo qof ah loo diiday inay xajiyaan dharkii xajkii gashnaayeen dhibaato badan bay soo mareen waa maalintaas contractiga la kala saxiixanayo waa maalintii Quraysh ay ku qortay contractiga qofkii muslim ah ee soo muslima ee Makka ka soo taga ee Madiina yimaada waa in loo soo celiyaa iyadoo la og yahay qofka loo celiyo inay dilayaan waa maalintii Quraysh ku tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam contractiga aad qorayso magacaaga waa inaad ka masaxdaa nabi aasa Maxamed kuma qori kartid waa inaad ku qortaa Maxamed Cabdillah intaas oo dhan waxa lagu qoray heshiiskii la qorayay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu saxiixay wuxuu ka tirtiray inuu ahaa nabi ilaahay wuxuu ku qoray Maxamed Cabdillah kadibna markuu contractigii dhameeyay ayuu 1400 oo muslimiin oo halka fadhiyay oo soo dhibaatoodo soo lugay qoliyo xajka tagay waad garanaysaa disappointmentiga adoo xaj package iibsaday oo diyaarad raacay oo hotel lagu dajiyay markii lagu yiraahdo iska noqo very disappointing laakiin bal imagine dad intaas oo dhan lugeeyay oo maxay ahayd oo la soo dhibaatooday oo inta contract la saxiixay waliba contractiguna aysan ahayn wax iyaga marka ay faa'iido u arkeen oo nabiga calayhi salaam yiri ina keena waynu noqonaynaa waliba diyaarad kuma noqonayno
waynu lugaynayna fardaheena iyo geeleeni dadkii intee cadhoodeen ishayn kari waayey ee ka dooday arrintaa waxaa ka mid ahaa Cumar bin Khataab wuxuu ku yiri miyaadan nabi ilaahay ahayn waxa aynu ku soconaa miyaysan wax xaq ahayn waxani miyaysan gaalo ahayn teeda kale miyaadan ku riyoon oo adigu aadan nagu oran maka inagu nabadaynu gelaynaa sidee ku noqonaa teeda kale iyadoo markaa contractiga la saxiixay ayaa waxaa yimid nin muslina oo silsiladaysan oo la soo garaacay oo dhaawac ah markuu soo galay ayuu nabiga calayhi salaam yiri hal celiyo waayo heshiis baa la saxiixay isagoo ooyaya meeshii laga celiyay markuu muraarad dilaacay wixii ka dhacayna waa la ogaa iyagoo sidii u niyad jabsan ayaa waxaa soo degtay aayadda kulley suuradda 48 quraanka ee la yiraahdo inna fatahna laka fathan mubina ayaa soo degtay marka suuradaas sheekada waan soo gaabinaya waxay ku bilaabatay maanta ayaa guushi ugu weynay idin soo hooyatay marka sheekadu waxay tahay maxaynu ka qaadanaynaa kulay suuradan cibrad badan bay leedahay siirada iyo quraankaana dadku dib ugu noqon kartaan hadii detailka maaragtay homework loo qaato sidii uu ka dhawaajiyay laakiin waxaan doonayaa inaan diiradda ku ifiyo maxay tahay guusha ugu weyn muslimiinta markaa meesha joogay ma arkeen inay guul gaareen way niyad jab aad bay u niyad jabnaayeen way xanaaqsanaayeen aad bay u calool xumaayeen runtii raallina kamay ahayn inay iyagoo maxay ahayd xaj soo niyeystay inay maxay ahayd toole noqdaan marka suuraddu kale marka dib u akhrisaan anigu waxyaalahan ka dhex arkay ee guusha ugu weyn ah culimada qaarna ay ku sheegaan waxa weeye waxaan ka taabanayaa 4 qodob waxay ilaaliyeen inaysan iskhilaafin waa guusha ugu weyn waxay kaloo ilaaliyeen inay cadhadooda hantaan si uusan cadowga uga faa'iideysan can you imagine 1400 qof oo la yirayo hajj package is cancelled go back oo nabigoodii ay dhowr iyo 10 sano aaminsanaayeen ee quraanku ku soo degayay la yiri ka saar inaad nabi tahay warqadaha ku qorin oo muslimiintii la yiri kii soo muslima dib u soo celiya marka waa cadho runtii xaggooda ah laakiin way hanteen cadhadooda si uusan cadowga uga faa'iideysan waxay muujiyeen dulqaad si uusan dab dhexdooda uga horin waayo hadday question gareeyaan oo munaafiqiintu ka faa'iideystaan waxaa imanaysa ciidankii iyo dadkii iyo maatadii iyo wixii oo dhan inay kala jabaan waxaad kaloo meesha kaaga cad inuu nabiga calayhi salaatu salaam u ogolaaday Cumar cadhadiisii oo uu dhageystay oo uu u jawaabay uu ku yiri Cumar waa sax run baa tahay nabi ilaahay baan ahay anigu ilaahay kuma caasiyeeyo laakiin ilaahay ayaa ina la jiri doono guul ina siin doona sidii bayna ku noqdeen marka waxaa jira xadiis kale oo laga wariyay ibn Umar oo sheekadan ku soo gabagabeynayo xadiiska marka nabiga calayhi salaam wuxuu yiri waa in dadka muslimiinta ah ay hogaamiyahooda adeecaan waa waajib qof kasta oo muslima saaran xataa haddii go'aanka hogaamiyaha markaa aadan raalli ka ahayn marka waa maxay ahayd tole sharci diini anoo sheekada halkaa kaga baxaya and I hope inaad ka fikirtaan maadaama aynu ku jirro nabadayn maadaama dadka qaarkood ama gobollo isku darsama ama gobollo kala go'a ama gobollo niqaash badan uu ka dhaxeeyo dawladdii Soomaaliyeed ay jirto dareenka ah tani aniga cadaalad iguma aha tani taydii ma aha waxba iga maqan waa inaad dib u fiirisaa muslimiintu waxay mareen iyo waxay u dulqaateen si aynu dulqaadkeeda u yeelano marka sheekada halkaas aan kaga baxaya qodobkayga labaad hiigsiga August 2016 that's what happens when you're in Canada over 30 years you lose your language through translations 2016 bisha August sabaa waxa inaga xiga 8 bilood hadii ilaahay idmo
sideeddaa bilood saddex ka mida waa bilaha islaamku uu yiraahdo shahrul xurum bilaha barakaysan haddii rabadaanta aynu ku darro waaba 4 bilood micnaheedu marka maxay tahay bilahaas lama dagaalamo xataa carabtu waxay isu furi jirtay beecada bayc mushtarka suuqyada hubka oo dhan waa la dhigi jiray marka waxaan qabaa weli waqti baynu haysanaa sababtoo ah xadiis kale waxaa jira laga warinayo ibnu anas oo uu oranayo inuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii adiga oo abuuraya timir ama midho adoo abuuraya saacadda qiyaamuhu ay kugu dhacdo ama ay soo dhawaato ha joojinina abuur marka weli ilaahay qiyaamihii inaguma keenay laakiin weli 8 bilood ayaa hadhay marka inagoo raacayna biraha barakaysan waa inaynu wadnaa oo aynu bilownaa nabadaynta marka hadday tahay khaatime iyo maakhir iyo hadday tahay gobollada kale iyo hadday tahay Soomaali dhammaan nabadayntaas inaga waa waajib ina saaran laakiin waxa ka soo baxaya iyo midhaheedu ma aha waajib ina saaran ilaahay wuxuu yiri xadiis waxa jira oranaya innamal a'maalu binniyat adigu niyada saxda la kaalay nabadaynta bilow hubka iska dhig bilahan barakaysan ka faa'iideyso haddii sida aan rabno ay inoo soo baxdo falillahi alhamd haddii ay soo bixi weydana de ilaahay baynu ajarkeeda ku leenahay haddii qalbigeenu daacad yahay marka waxa loo baahan yahay inaynu bilowna cafis iyo caafimaad haddaan u gudbo midda ugu dambaysa oo ah dowladdeena federaalka sida aan dhammaanteen ognahay waxbarashadu waa furaha waxbarashadu waa furaha nolosha waxay tilmaantaa hadba jiilka meesha ka soo baxaya waxay ku tilmaamayaan mustaqbalka magaalada ama gobolkaasi uu leeyahay gobolka aan waxbarasho lahayn waad garan kartaa 10 sano hadda kadib 20 sano hadda kadib waxay noqonayso dhalinyaradu markay waxbarasho waayaan qorigay qaataan ama qori bay wataan ama qorigii iyo qaadkiiba way wataan waa wiilasha sidaan anigu ku soo arkay gabdhaha dhalinyaradaana markay waxbarasho waayaan midka ay is yiraahdaan kana rag ugu roon bay iska guursadaan iyagoo caruura ama kuwa qoriga sita ee qaadkana cunay ayaa xooga oo dhibaatadeediina meesheediiba inoo taala iyo ceebteediiba marka waxbarasho la'aan waxa ka sii daran caafimaad darrada qofku markuu caafimaad leeyahay buu wax baran karaa marka tusaale waxaan u soo horta khaatimo waxyaalo badan bay ka qabatay gobolada ay imika hayso kulay anigu sidaan ku soo arkay tusaale ahaan airportkii laga furay Buuhood hooyada ay xanuunsanaysan la hadlay waxa lagu yiri hooyo way xanuunsanaysaa markaasaan ku yiri hooyo dhakhtar baa lagu qaadaya dhulkii dhakhtarka loo aadi jiray marka hooyo waxay haysaa 7 caruura oo hooyadood ay ku dhimatay dhiigbax iyadoo loo sii wada magaalo kale in cisbitaal loo geeyo marka mar walba markii la yiraahdo dhakhtar baa lagu geynaya waxay ku leedahay hooyo kuwan kama tagi karo maalin dhaweeyta markay tiri wax xanuunsanaya waxaan ku yiri hooyo dhakhtar baa lagu qaadaya dhulkii loo safri jiray markaas waxay tiri hooyo garoon baana loo furay oo magaaladii laami baa laga dhigay oo ajnabi baa yimaada bishii 2 goor dhakhaatiir oo ma baahno ilaahay baa noo nicmeeyay marka inkastoo ay khaatime isku dayday inta ay awood ayna ku mahadsan yihiin laakiin shacabkaasi weli wuxuu tabanayaa inay maqan tahay qaybtii ay ku lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliyeed laga rabay inay buuxiso weli shacabkaasi waa tabanaya waxa muuqata in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wado dadaal muhiim ah runtii oo ay kula shaqeynayso gobolada kale ee wadanka ama ay ku aqoonsanayso gobolada cusub ee haddaba ay kamid yihiin galmudug anaguna aan ku faraxsanahay runtii sanadkii hadda dhamaaday iga raali walaal haddaan soo gabagabeynay waa arkaa inaad minute iyo 2 qorayso but I am with you sanadkii hadda dhamaaday ee 2015ka madaxweyne mudane xasan shariif حسن شيخ
hadalladii uu yiri ee laga qoray miidiyaha waxaa ka mid ahaa waxaan isku dayaa inay siday tahay aan u akhriyo wuxuu yiri cid walba ha loo geeyo xukunka oo ha loogu geeyo gurigooda ha is xukunto iyadu kuwa wax xukumayana iyagu ha soo doortaan yaan loo magacaabin yaan dusha looga keenin wiilka iyo gabadha iyagu ay garanayaan ha doorteen oo ha soo xusheen kooda ugu ammaanada badan ee ugu dhiiran ee ay geesinimada ku bidayaan ee aqoon-yahanka ah iyagu ha la yimaadeen marka waxaan leeyahay anoo soo gabagabaynaya mudane madaxweyne shacabka reer Khaatimo waxay iska soo doorteen halyey ugu ammaano badan oo aan iyaga mushahaaro soo doonan ugu dhiiran oo gurigiisii raaxada ahaa ka doortay inuu geed hoostiisa seexdo ugu aqoon-yahansan oo waxbarasho nin Soomaaliya ama qof bini aadan uu gaari karti ugu sarreysay gaaray ugu khibrad badan oo sida kaararka badan la sheegay khibradiisana aan maanta la soo koobi karin marka mudane madaxweyne shacabka reer Khaatimo way ka soo baxeen waajibkoodii oo intay geed hoostii fadhiisteen ayay sidii Soomaali lagu yaqaanay tashadeen oo doorteen Dr. Ali Khaliif Galayd iminkana weli waxay diyaar u yihiin wada shaqayn ama maakhir ha noqoto ama Soomaaliya inteeda kale ha noqoto marka su'aashu waxay tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya maxay ka damacday mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Sool Sanaag iyo Cayn horumarkooda iyo dib u dhacooda miyuusan mid Soomaaliyeed ahayn waana mahadsantahay